ugu horeeyay ka socda dawladda Djibouti ee ka mid noqonaya ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM ee ku sugan Soomaaliya ayaa maanta ka soo caga dhigtay gigida diyuuradaha ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. barqanimadii maanta ayaa ciidamadan oo wata dabaabaadkooda dagaalka waxay ka soo caga dhigteen garoonka diyaaradaha ee Ugaas Khalifa International Airport ee degmada Beledweyne, halkaas oo ay ku sugnaayeen mas'uuliyiinta ugu sarreysa maamulka dawladda ku meel gaarka ee gobolka Hiiraan iyo waliba saraakiisha ugu sarreysa ciidanka dawladda Djibouti. sidoo kale waxaa halkaasi ku sugnaa madaxda ciidamada dawladda Itoobiya. waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay oday dhaqameedyo iyo waxgarad ka tirsan degmada Beledweyne, iyadoona halkaasi warbaahinta uu kula hadlay gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dawladda ku meel gaarka Cabdifitaax Xasan Afrax, wuxuuna si aad u soo dhaweeyay ciidamadan ka socday dawladda Djibouti ee soo gaaray gudaha gobolka Hiiraan. magaalada Beledweyne gobolka Hiiraan aad ku geli doontaan soo dhawaada. marka inta waxaan rabaa inaan fariin ugu diro shacabka iyo madaxweynaha iyo dawladda Djibouti. anigoo dhahaya waxaad aad iyo aad ugu mahadsantihiin gurmadka walaalihiin aad sameeynaysan had iyo jeer ale xagga siyaasadda, xagga iyo xagga caawimaadda waa ku filinaysiin shacabka Soomaaliyeed. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid odayaasha iyo waxgaradka degmada Beledweyne, iyagoona soo dhaweeyay ciidamadan dawladda Djibouti oo qaybteedii ugu horeysay ay ka soo caga dhigteen garoonka diyuuradaha ee Ugaas Khalifa ee degmada Beledweyne. reer Djibouti iyo dhammaan shacabka Djibouti oo dhan, ciidamada saraakiishooda, hooyooyinka, dhalinyarada iyo waxgaradka dadweynaha, ugaasiyada iyo culimaawidiinka dhammaan reer Djibouti waxaan leenahay meel kasta oo aad joogtaanba si kastaba ha ahaatee ciidamada dawladda Djibouti ee ku biiraya ciidamada nabad ilaalinta AMISOM kuwaasoo soo gaaray gobolka Hiiraan ayaa la filayaa in 10 maalmood ee soo socota ay si toos ah kaga soo degaan garoonka diyuuradaha ee degmada Beledweyne, sida uu inoo xaqiijiyay Korneyl Cismaan Dubbad oo ah korneelka hogaamin doona ciidamada gobolka Hiiraan ee dawladda Djibouti ka socda. waa markii ugu horeysay ciidamo ka socda dawladda Djibouti ee ka mid ah ciidamada AMISOM ay soo gaaraan gobolkan dhaca bartamaha Soomaaliya ee Hiiraan, iyadoo muddooyinkii la soo dhaafayna si aad loo hadalhayay in ciidamadan ay soo gaari doonaan gobolka Hiiraan. Cabdirasaaq Maxamed Cabdullaahi Al Cadaala, telefishinka caalamiga ee Royal, Beledweyne.